wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Muuse Ibrahim Yusuf Salaf ayaa maanta tababar u soo xidhay agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland. Tababarkan uu socday mas'uuliyiintan muddo 2 cisho ayaa ku saabsanaa hanaanka loo maro qiimeynta shaqada iyo shaqaalaha iyo sidoo kale hogaaminta tolmoon ee laga rabo madaxdan tababarka loo soo xidhay oo ah kuwa muhiim u ah kala hagidda iyo shaqada wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland. Ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay mid kamida mas'uuliyiinta tababarka loo soo xidhay waxaanu ka sheekeeyay qodobada muhiimka u ahaa tababarkani. waxaan noo soo dhamaaday 2 maalmood oo runtii aynu waqti badan ku wada qaadanay kuna baqaynay guud ahaan qiimeynta shaqaalaha iyo hogaaminta hal-abuurka kale mise hogaaminta wax taxliilisay oo oran karnaa adaptive leadership wax loo yaqaano ee loo adeegsado isbedelka guud ahaan wasaaradda horumarinta maaliyadda oo intiina ay tihiin jiinkii ama mashiinkii waday runtii waxay noo suurta galay iyadoo uu nagu hogaaminayo wasiirkeena maaliyaddu isla markaana aynu raacno himilada iyo hiigsiga guud ee qaranka isbedel ballaaran bay noo suurta galay. isbedelka ballaaran wuxuu suurta galay madaxda wasaaradda runtii ay ka go'an tahay guud ahaan kamida dhalinta ahdaafta waaweyn ee isbedelka maamulka maaliyaddu wato. idinkuna waxaad tihiin udub dhaxaadkii ama mucdii guud ahaan ka mas'uulka ahayd isbedeladaasi idigoo ka mas'uula waaxyo dhammaantood muhiimadooda leh oo haddii wax kasta la dul istaago runtii baaxadeeda iyo culayskeedu oo u dhigma hay'ado waaweyn oo dowladda ah. waxaa muhiim ah markaa shaqaale fara badan bayna hoos yimaada isbedelka hoos buu daadagayaa daadajinta isbedelka mas'uuliyaddeeda koowaad idinkaa leh. okay qiimeyntii guud ahaan shaqaalaheennii sidee bay u perform gareeyaan ama sidee bay wax qabadkoodu sidoo yahay halkuu taagan yahay halkee wax laga qabtaa maxaa loo baahan yahay lagu daro waa qodob isna loo baahan yahay. sidoo kale waxaanu baqaynay maadaama hogaamiyaal tihiin hogaaminta lafteedii oo hogaamintii hawlkii su'aal baa taagnaa jirtay oo Salmaan maalin subaxii dhigtay weydiin hore su'aashii ma laga jawaabay hogaaminta miyaa loo dhashaa sawaa la bartaa waxaa laga jawaabay wuxuu yiri beerka halka si jisko damo dhalay waa la bartaabay noqoto baashay skill bay noqotay marka hogaaminta wax la baran karo qofku la qabsan karo waa adapt gareyn karo noocan cusub ee hogaaminta wax taxliilisan oo xalisaana waa nooc imika loo arkay in isbedelada waaweyn ay muhiim u tahay. waxaan filayaa wixii aan ka baqanay 2 maalmood iyo dhibaatooyinkii badnayd soo jeediseen oo xalkoodu la socday inaynu xafiisadeena ku noqon doono isla markaana isbedelkaasi aynu ka arki doono waxyaheena aad baad ugu mahadsantihiin waqtiga iyo juhdiga aad 2 cisho geliseen. wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Muuse Ibrahim Yusuf Salaf oo tababarka u soo xidhay mas'uuliyiintan ka tirsan wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa kula dardaarmay sidii loo weelayn lahaa tababarkan isla markaana ay uga muuqan lahayd habsoomi socodka hawlaha shaqo ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland. kani wuxuu ku saabsanaa xasan sheegay 3 qaybood oo waaweyn buu ka koobnaa saa la socotaan waxaanu leenahay istiraatiijiyad guud oo aynu ka dheegnay qorshe hawleedyo sanadla ah oo ay ka farcamayaan maxaan ku raadayay objectives iyo activities ay ka farcamayaan oo sanadka dhan soconaya oo waaxaysan oo maxaan ku raadaa madax qaybeedsan oo shaqaalaysan. runtii ta ugu horeysan u baranayna waxa weeyaan sidii waxqabadka qorshaha inoo yaala waxqabadkaas loo maamuli lahaa ee qof kasta shaqadiisa uga gudan lahaa si on time si maxaan ku raadaa efficiency oo maartay fiican oo sida ugu wanaagsana. qaybta labaad maartay adaptive leadership waxa weeyaan taa maxaan ku raadaa si aynu hogaaminteena iyo maxaan ku raadaa kor ugu qaadi lahayn si aynu u gaarno yoolkeena iyo istiraatiijiyadeena. ta saddexaad waxa weeyaan waxaan saad ka warqabtaan waxaan wadnaa dib u habayntuna runtii waxa u baahan tahay waxa ka dhimanaya isbedelo qaar technical iyo qaar maxaan ku raadaa dhaqaalaha iyo qaar nooc kasta waxay u baahan yihiin isbedeladaasi in la maamulo oo marba sida ugu fudud ee ugu fiican ee ugu wanaagsan loo hirgeliyo. kulka 3 qaybood ee halka ku baranay runtii tababar aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa. idinkana waxaan idinka mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd ee qiimaha lahayd ee maxaan ku raadayay kartida lahayd ee uga qayb qaadateen
doodihii iyo maxaan ula dhageysateen culumtii leedin baray wixii talooyinkii soo jeediseen iyaga laftooda iyaguna ahaa qaar dhaxalgala ugu dambeyn waxaan rajaynaynaa in waxa halka aan ku baranay inagoo ah madaxdii wasaaradda dhamaanteen inaynu gaarsiino shaqaalihii iyo saraakiishii iyo madax qaybeedyadii iyo ku-xigeenadii iyo intii naga maqnayd ee madashayna la joogin inaynu la wadaagno oo aynu ku wargelino oo aynu ku wareejino ayaa laynooga baahan yahay. Cabdisamed Cali Axmed, Badcas TV, Hargeysa.